sokeeyo marka lacag in online laga sameeyo ina xirfad baratid xirfadaha ugu muhiimsan maanta adduunka waa kuwa kow ina computer garanaysid sabab badan inta samaysa ay xagga u socda wallahi AI change everything maxaa akhrisaa wixii maskaxdeeda lisaya adaa soo koobaya luqadda ingiriiska inuu qofka barto maxaa u sahlan kow inuu go'aan yeesho qofka raba inuu na daawado maxay tahay inuu naga faa'iido saddexda arrimood ayuu naga faa'iidaya hadday noqoto mindsetkiisa hadday noqoto skillsetkiisa iyo hadday noqoto toolska jira maanta sidee buu isticmaali karaya what is mindset waa manhaj maxaa ku dhiirigeliya bishii imsaa samaysa 10 sano aan dib u laabano badii mise badii horta waxaan ahay warsamo badee sanadkii 2015 ayaa u guuray dalka Belgium nin ganacsada ah sidoo kale ah wacyigeliye waxaana uu shaqada ka bilaabay shaqooyinka ugu adag ee lagu shaqeeyo waxaan ka soo noqon jiray 5 galabnimo anigoo daalan oo diiqadaysan balse sanada kadib waxa si yar isu bedeshay noloshiisii kadib markii uu qaatay go'aankan maanta soo dhameeyay shaqadii article assistant su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa ku kalifay warsame go'aankan waxaan go'aan ku gaaray inaanan bilaadan u shaqeyn waxaan urursan jiray lacagtayda waxaan soo iibsaday gaari muddo ka bacdi waxaan bartay xirfado waxaan bartay aqoon intii wixii ka dambeysay alxamdulillah wuxuu ilaahay ii suurta geliyay inaan business dhiso imika waxa uu xor yahay warsame noloshiisa waxaan tagay wadamo badan oo riyadayda ah sanadkii ugu dambeeyay waxaan safray 39 wadan haddii aan anigu noqday qof isku filan haddii aan anigu meel ka soo baxay haddii aan anigu noloshayda meel ka soo saaray adiguna waad ka soo saari karaysaa farsamo ayaa la wadaaga dhalinyarada casharada noloshiisa bedelay isagoo mawaadiic kala duwan mid kala hadlaya warsame bade qof walba shay ku leeyahay warsame bade ila soo dhaweeya warsame bade soo dhawow qofkana daawanaya ee channelkeena ku xiran maxaa ay tahay inuu naga fisho muxuu naga faa'iidayaa muuqaalkeena dheer intuusan dhammaysan ama wada daawan muxuu naga faa'iidi karaa qofkaas aad ba maasanta walaal waa su'aal aad iyo aad muhiim ah waxay qofka siinaysaa inuu ogaado inta shaqo sameyn lahaa aad baan maasan tahay wuxuu naga faa'iidayaa sidee buu mindsetkiisa u dhisi lahaa sidee buu skillskiisa u dhisi lahaa iyo tasaddexaadoo sidee buu toolska u isticmaali lahaa saddexdaa arrimood ayuu naga faa'iidaya hadday noqoto mindsetkiisa hadday noqoto skillsetkiisa iyo hadday noqoto toolska jira maanta sidee buu isticmaali karaya okay warsamo badan marka ugu horeysa harnaa bal adiga inaan ku wareysano inta aynan dhalinyarada iyo wixii adiga laftigaa waxaan ka hadlaysaa wixii adiga kuu fududeeyay mogta so warsamo bade bal aynu dib u laaban dhalinyaranimadaadii marka intaan ka yareed waxaad iiga sheekaysa hal mar noloshii Yurub iyo bilowgii adduunkan hadda aad ka sheekeynaysid sida lagu soo galay kulley duni digital casrisan kuma inaan dhalin kulligeen waxaynu ka nimaana dunida kale xoogaa ka dambaysa marka bar safarkaaga iiga waran wala aad ba maasanta waran dunida casriga kuma indhala inagu millennium baan nahay waxa jirta millennium Gen Z Gen Alpha kuwii naga horeeyay Gen X bay hayeen waliba Mareykanka aad looga isticmaala so typical specifically markay marketing isticmaalayaan iyo ayay isticmaalaan generationska so they can know how to think inagu marka waxaan ahayn generationkii ugu horeeyay ee la introduce gareeyay ee la baray teknolojiyada inagu waxa la yidhahdaa social media inagaa layna baray kuwan dambe Gen Z-gan iyo Gen Alpha iyagu way ku koreen wixii iyagoo jir unbay yimaadeen marka waa run oo qofna teknolojiyada kuma korin safarkayga gaar ahaan haddaan ka hadlo Yurub imaashiisii iyo intaanan safarkayga iman wadankan ku noolaa waa shaqayn jiray waxyaaba badan oo kala duwan shaqooyin badan oo kala duwan baan Allah saxan soo qabtay hadday noqoto truck driving baan ahaa oo waxaan tagi jiray guud ahaan deegaanada Soomaalida oo dhan hadday noqoto dowlad deegaanka hadday noqoto koonfur Soomaaliya hadday noqoto Puntland hadday noqoto Somaliland gaari weyn oo xamuulka qaada Andameedle maxaa loo yaqaanaa Sarway streetka miyaa waa Sarway waa kuwa 19ka sida 19 oo kale gawareerta wadi jirtay gawareerta baan wadi jiray marka halka maxaa qaadi jirtay waagaas waxaan qaadi jirnay xamuulka intaan ka baxno harar ayaa waxaan ka qaadi jirnay harar meel u dhow Kombolsho la yiraahdo waxaan ka qaadi jirnay baradhadaas baan geyn jirnay ilaa Beledweyne waxaan sii mari jirnay Jigjiga dhagax buur qabri dahare Shilaabo haddana xagaas baan feerfeer ka geli jirnay feerfeer markaan galno Beledweyne tagi jirnay aan dhulkaas dhan waa martay muddo 3 sano noloshayda Soomaaliya oo dhan magaalada ninka istaagin ma jirto Allah sacan ilaa waxaan tagnay beled xaawo iyo Mandheera agteedan gaariga ku tagnay intaan xamar alaab ka qaadnay xagan kale waxaan ka tagay Afdheer Imi iyo Jarati iyo Guri Daamole iyo
meelahaas baan tegey wadda ka dhawaad tagtay haa waan tegey hadday noqoto Djibouti sidoo kale waan tegnay Diridhaba iyo intan Allah taala la xidhiidha Puntland waan nimid Gaalkacyo iyo goboladan Mudug iyo intan u dhaxaysa marka maskaxdeedu waxay ku furantay early 18 markaan ku jiray meelahaas ayaan dhulkaas oo dhan maray gaari weyn oo xamuulan iska lahayn anagu ayaan xisaabiye kaan jiray markii dambe dalawar baan ka noqday anaa wadi jiray oo meelahaas u kala bixin jiray marka adiga marka magaalada base ku ahayd markaas magaalada ku noolayd magaaladan anigu ku noolaayn ku dhasheen ku koray Boorama ku dhasheen ku koray Boorame marka deegaanka bal halkaas uga baxaynaa inkastoo sheekada arrin naga baxdo Europe Europe safarkayga sidii baan ku soo baxay Europe baan tagay Allahumma musta'an I think 2015 10 sano hadda laga joogo May bay ku buuxday Allahumma musta'an 10 years tayb qofku dhalinyaradii markuu Europe tago idinku xagga wanaga duwantay Mareykan opportunity ba badan luqadii baa luqad Ingiriis ah Soomaalidii baa they are doing amazing information ka dubaatid faraha ka helaysaa markaan Europe tagay damijirin cid ku siinaysa information kaas iyo sad ku heli karaysa way adkeed waxay noqonaysaa Allah musta'an inaad adu wixii baadhido wixii dhanaad go'ad sidii kaambaad galaysaa kaamka markaad gashid $7 baa lagu siinayaa week dhan cuntada safaad u galaysaa shaqal ma shaqeyn karaysid markaad Allah musta'an intaa ka soo baxdid badan oo information aad ka heli karaysid ma jirto de waxa nin raga tahay waa inaad waxa garaditaan ma mas'uuliyad iyo waxyaabaas baa ku saaran waxay noqotay sidii inaan shaqo ka shaqeeyo dhismayaasha ka shaqeeyo warshadaha ka shaqeeyo masaxadaha ka shaqeeyo weel xalista ka shaqeeyo ma habeenada kamid ah waxaan xasuustaa company weyn oo foolfal loo oran jiray anagoo shaqeynayna ayaa nin wadanka Gaana ka yimid baa wuxuu yiri ayaan sheekaysanay marka companygaas lacag fiican baa laga qaadan jiray marka de wax lacag weyn ahayd 2500 3,000 euro something like that deet habeenkii anoo shifti hore ka soo baxay oo shaqadan shifti labaad soo galay ayaan ku yiri nin companyga lacag fiican bay bixiyaan waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo maxaad igula talinay marka nin wuxuu yiri 15 sanaad baa meesha ka shaqeynay waan ku dhabar jawaabi contract waan haystaa hadaan yeelan lahaa maanta ciyaalo iyo mas'uuliyad bay igu xiran waxbaan baran lahaa buu yiri wax baro ninkaas wuxuu ii save gareeyay 10 years of my life maalinkii wixii ka dambeysay waan fikiri jiray waan isweydiiyey okay hadda 10 sano meeshan ka shaqeysid contract waad heli guri yar gaari yar waxaas way isugu hagaagayaan laakiin potentialkaaga iyo kartidaada ma maximize gareyn karaysid intii wixii ka dambeysay waxa dhacday inaan idhaahdo Allah musta'an inaad xirfado barataa aqoon barata aqoontu marka laba ay u kala baxdaa aqoon baa jirta formal education ah inaad jaamacadda tagtid ama secondary tagtid oo sanadka koowaad martid ama sanadka labaad aan sidaad kuriimo ku samaysid iyo waxa jirta aqoon kale oo adigu aad ku baranaysid like buugta hadda ku daba yaalo kale buugga xagaa ku daba yaalo any mawduuc ka soo baatid marketingka hadday noqoto businesska hadday noqoto psychologyga time managementka goalska productivityga microeconomica copywritingka content creationka any mawduuc kasta waxa jirta intaasoo qof Allah musta'an waa ka qortay haddana intii wixii ka dambeysay video baa jiray Allah musta'an aan iska duubay oo nidhi I don't want to work to someone else inaan shaqeyn maro I want to work for myself maalinkii wixii ka dambeeyey ma garanin in xirfadyo waxyaabahaasi jiraan sidan buug ka dambeeyay ugu dhiibay aqoonta ka dambeysay ugu dhiibaysay waxa ka dambeeyay ugu dhiibaysay waxay noqotay inaan koriimahayga baa karo inaan Allah musta'an koriimo sameeyo inaan waxyaabo ka duwan inaan online ka galo inaan isweydiiyo maxay dadku sameynayaan maxay baranayaan maxay qabanayaan dan sidii Allah musta'an koriimo ku sameeyo day after day week after week and then corona dhacay business aan iska lahaa oon samaystay intaan taa samaystay Allah musta'an business baan samaystay oo waxaan soo iibsaday gaarigii transportationka ku sameyn jiray and then waxoogaa waan ka koray mid labaad baan soo iibsaday and then businesskii waxoogaa buu ayuu koray and then coronii baa shutdown cid guuraysa ma jirto cid baxaysa ma jirto cid waxaynaysa ma jirto waxay noqotay inaan isweydiiyo maxaa samayn kartaa intii wixii ka dambeysay waxay noqotay inaan idhaahdo xirfadaad u baahan tahay Allah musta'an inaad baratid markaas baan bartay xirfada e-commerce iyo marketingka iyo digital marketingka intii wixii ka dambeeyay history bay noqotay iyadoo maxaad ku shaqaysataa marka hadda iyadii baan ku shaqaystaa iyadii baan koriyaa iyadii baan dhisaa iyadii baan hadda millionaire ka noqonaya insha Allah okay adduunka teknolojiyadda runtii waa dunia hadda la aaday qof dunida saddexaad ku nool inuu aamino qofba intuu bilinka qolkiisa ka soo kaco hoosta hoose fariisanayo oo lacag dadka xafiisyada u ka lahaa
aysan sameyn online ka sameynaya fahanka qofkaasi waxaa loo haystaa qof ciyaaraya bal dunida teknolojiyadda inta aanan sii dhexgelin heerka hadda ay ku socoto waa heer inta leeg wallahi adduunku wuxuu soo maray xilliyo kala duwan waxaa la soo maray xilligii beeraha xilligii warshadaha xilligii distributionka la sameynayay waxaa kaloo la soo maray xilligii technologiyadda internet markay bilaabmeen marka hadda waxaan ku jirnaa information age-na knowledge is a king adiga mahada hadda waad soo kacdaa waxaad tahay muuqaal sameeya waxaad incomekaaga ka samaysaa online-ka you creating a content and you making a allah mustacaan incomekaaga wuxuu ku dhan yahay marka online-kii wuu badan yahay oo allah mustacaan online-ka marka dadkeenii gaab baa dhacay aada u badan oo qofkii aqoontu isbedelaysa waagii hore waxaa loodhan jiray aqoontu shantii sano kasta mar bay isbedeshaa laakiin aqoonta maanta aynu joogno every single day gabow baa ku dhacay wixii hore aad garaysay wax ka duwan marka information age-na knowledge is a king it doesn't matter nacam judgmentkaaga ama sad wax u judge garaynaysid iyo fikradaad haysatid ayaa ka muhiimsan inaad guri iyo gawaari iyo hantidii la taaban jiray iyo dhul iyo beera iyo waxyaabahaasoo dhan aad yeelatid inaad information iyo xog muhiim aad haysatid marka online-ka income baa laga sameeya waa laga shaqaystaa xirfadaa laga bartaa waxbaad ku dhex dhisaysaa oo meeshaad wax ku dhex baranaysid meeshaadna wax ku dhex dhisaysid weyaan marka hadda halkaasaa dunidu aadaysaa bal okay online baa rabaa inaa hadda aado waxaan daawada warsamo baday marka wuxuu ii sheegay meel online la dhaho inay jirto oo wax lacag laga sameyn karo go-aankaas inaan qaataan rabaa maxaa ka sokeeya marka lacag in online laga sameeyo inaad xirfad baratid xirfadaha ugu muhiimsan maanta adduunka waa kuwe okay xirfadaha ugu muhiimsan waxa weeyaan horta kow inaad fahantid inaad allah mustacaan intaan xirfad baran inaad mindsetkaaga soo saxdid intaan xirfad tegin you need to inaad saxdid attitudekaaga ku aadan what is mindset mindset waxaa la yidhahdaa waa manhag mindset waa manhag waa qof hagaya maankiisii ama waa maskax dhig imika waxba rabtaa inaad samaysid you become a content creator marka xaggan timiday allah mustacaan maraykan timiday waxaa tidhi waxaan sameynayaa businesskaas waxaan rabaa inaan cid u shaqeeyo cid shaqo mood bilaab maalinkaad heshay barmidkeed allah mustacaan saa heshay baalkaagaad ku shaqaysanaysid first day imika hadda wax yar ka hor waxaad ii sheegaysa inaad business adu aad leedahay bilowday sabab aad u bilowdeeda because the mindsetkaaga mu ahayn inaad shaqaale noqotid mindsetkaaga wuxuu ahaa inaad aduu haysatid allah mustacaan autonomiga noloshaada aad qacanta ku haysatid marka mindset taas baa la dhaha haddii aan maanta raba inaan idhaahdo waxaas baa rabaa inaan sameeyo that it mean mindset marka mindsetkaagu inuu ahaado isku aragtid in qof xirfadahan baran karaya aqoontan samayn karaya allah mustacaan la qabsan karaya no matter how hard wax walba imika gaariga taqaana sa loo kaxeeyo mad garni waad baratay waxaad baratay sidee interview loo qabtaa waad baratay sidee kamarada loo duubaa waad baratay waxaad baratay there is so many skills at accumulation noloshaada kusoo sameeyay marka banaanka taagantay aad marka ka taagantay marka si aad markaad online soo galaysidna dibadda allah mustacaan aad ka arkaysid waxaad moodaysaa waxaan inuu wax weyn yahay laakiin wax weyn maaha waa xirfad u baahan allah mustacaan marka hore inaad mindsetkayga yeelid okay waxaas waan samaynayaa hadduu qof sameeyey aniguna waan samayn karaya hadduu qof bartay aniguna waan baran karaya hadduu qof waxaa noqday aniguna waan noqon karaya andan taas markaad heshid ayaad odhan karaysaa xirfadda iyo online businesska iyo imika adigu fakel baa ku dhex jirtaa content creator baa tahay waxaa tahay media production baad soo saartaa that's your niche anu waxaan leeyahay softwares contentkii dhinac baan kaga jiraa traininaan bixiyaa eventiyaan qabtaa allah mustacaan product baan leeyahay software saas caadiya oo allah mustacaan businessyadu websiteyada ay ka dhex samaysan karayaan marketing ka dhex samayn karayaan whatsapp campaign ay ka dhex samayn karayaan xirfadaha jira allah mustacaan aan dadka baro physical products baa jirta allah mustacaan book baa jiraan nacam waxaasoo dhan waa fakelku kaxaynaya oo meel ku gaarsiinaya adigu imika businesskaagan aad ku dhex jirtid it is a fakel la yidhahdo content creation anigu kan ku dhex jiro waa marketingku waa fakel meel ku gaarsiinaya waa gaari ku kaxaynaya meel ku gaarsiinaya marka muhiimaddu waxa weeyaan fakelka raacisa muhiimaddu maaha laakiin waa dilawarka qofka kaxaynaya marka qofka raba inuu online ka yimaado marka hore inuu naftiisa fahmo u yidhaahdo maxaan rabaa inaan sameeyo sidee baan u samayn karayaa waa inay dhiirigelin jirtaa waa inay jirtaa wax qasbaya waa inuu jirtaa waa in wax ku bushkaraynay jirta kadibna haddiiba hadda dhiirigelintii aan helo Maskaxdayda aan sax. seexan la ahay oo mindsetkaygu ii diido inaan shaqo qof leeyahay ka shaqeeyo oo aan rabo inaan noloshaydan nolosha anigu aan rabo inaan samaysto haddana waxaan u maleynayaa dadyow fara badan maanta iyadoo maraykan la joogo dadka qaar way iska dhaga xiran yihiin xoogaa resource inay helaan uma fududa dadka qaarna way u fududahay bal inkastoo maanta dunida easy tahay wax kasta la heli karo haddana
online business baa rabaa inaan bilaabo halkeen ka bilaabi karaa mindsetkayga waa isbedelay sidee u bilaabi karaya wadada ugu fudud ku bilaabi karaya online business maxay skillska ugu muhiimsan isagana aan u baahanahay waa kuwe skillska ugu muhiimsan Allah subhanahu wa ta'ala ko inaan computer garanaysid oo haddaan computer garanayna Allah subhanahu challenge ba ku noqonaysaa markaad tibtid inaad online bilowdid nacam xirfad baa jirta imika telefoonkaaga qof walba telefoon uu haystaa uu isticmaala online ku dhex jira qofka online kama dhex maqna maanta qof le online ma ka dhex maqan oo Soomaaliya I think dadka resource ugu yar yahay aan telefoon awoodi karayn in meelaha baadiyaha jooga mooyane ilaa dadka wadankii jooga waa dadka social media ugu isticmaalka badan Soomaaliya absolutely waa dadka Ethiopia kale nagu dhow Ethiopia waa 100 milyan 8 milyan kaliya ta social media isticmaasha Ethiopia waa 110 milyan dad ku dhow dadka telefoonka haysta way yaryihiin laakiin Soomaalidu way wada haystaan ama mid qurbaha ka jooga soo xiriir ama qof isaga wax haystay TikTok iyo meelahaas bay wada dhex jiraan marka qof walba online ku isticmaalaya laakiin online-kii isaga la isticmaalayo ayada Allah mas'aan xirfad ka dhex baran karaysa marka xirfado way badan yihiin haddana imika specific xirfad ku dhaado xirfado badan baran kartid budget content creation ka baran kartaa video editing ka baran kartaa coding iyo website ka baran kartaa marketing ka baran kartaa copyright ka baran kartaa dropshipping baad baran kartaa waxaad baran karaysaa there is so many skills qofku baran karayo oo maanta wax ku dhex samayn kara AI baad baran kartaa cyber security baad baran kartaa data science baad baran kartaa nacam so many things baa jirta oo sii raaci karaysid laakiin marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay Allah mas'aayna fahamtid muxuu yahay maxaa adigu ku fiican tahay dadka qaar baa kamarada ku fiican dadka qaar baa hadalka ku fiican kuwaas iyagu in xag hore yimaadaan hadlaan oo content ay create garayaan baa muhiimsan qaabka ugu fiican ku samayn karayo dadka qaar baa ku fiican inay designing wax sameeyaan marka adigu inuu qofkii soo gaado maxaan anigu ku fiicanahay marka business isagoo ku fiican inuu specifically marka isagu doorto inuu soo doorto okay hadda Mareykan baan ku sugannahay dunida aan ka sheekeynayno dhalinyaro badan oo asxaabteyda ah inkasta mararka qaar ay energy haddana u hayaan inay way waxaa moodaa 10 sano kadib nin baa ishada inuu warehouse gudihiisa talo kugu siiyey taladii baa Ilaahay kugu anfacay dhalinyarada nagu xiran asxaabteena ay walaalaheenna ah warehouse u shaqo taga manad waxaan daawanayay cilmi baaris lagu sameynayo warehouse 10 sano kadib qaabka u socdo Mareykan baan joognaa hadda laftigeeda haddada aan kula hadlayo shaqooyinka ugu badan warehouse-ka waxaa qabta Robert alaabta ugu culus isaga gura marka waxaan isweydiiyay 5 sano kale kadib bini aadamka Amazon u shaqo tagi karaya oo yaraanaya inta la ekaan karayaan dabcan waxa Amazon ka shaqeyn doona dadka yaqaan sida robotka loo isticmaalo dadka robotka ku shaqeyn kara baa Amazon ka shaqeyn doona dad noocaas ay hayr gareynaysa oo dad xirfadlayaal ah marka bal Mareykan waa joogtaa kulli waxna waad fiirfiirisaa hadiiba aan wax hagayno dhalinyarada xirfadaha ay aadi karaan oo inay bartaan u fududahay oo ogtahay qofku markuu lacag rabo inuu sameeyo meeshan lacag baa loo yimaaday lacag rabo inuu sameeyo biilo ku taagan yihiin ma hayo waqti badan oo uu iskuul ku aado oo 4 sano 5 sano jaamacad ku aado sida hadda sheegis skills qofku waa laga yaabaa in lagu dhiirigeliyo hadana skillska easy-ga ah waxay noqon karayaan qofkuna uga maarmi karayo inuu warehouse u shaqo tago horta Allahumma musta'an ma hado there is nothing easy wax la ma jirto wax bilaash oo meel iska yaalay ma jirto sababta kaliya tuu qofku wax ku samayn karayo waa inuu value create gareeyo value suu create gareeyo waa inuu Allahumma musta'an xirfadan barto markaad waxaan baranaysid hasorin waa easy oo online ka chief oo chaqbal ayaa ka jirtay waxa weeyaan inaad baranaysid xirfado waa inaad baranaysid fahanno waa inaad baranaysid farsamooyin cusub oo ku soo qabsan lahayd markaad noqonaysid waxa ugu badan Allah musta'an dadku ay weydiiyaan waa maxay specific xirfadan baran karayo kuma ogi Allah musta'an aad waxa ku fiican tahay aad waxa ku fiican tahay adeeg wax mid laakiin xirfadan soo oran karaya hadduu qofku barto social media marketing oo kale marketing hadduu barto sidii Facebook ads loo oran karaya hadduu barto copywriting oo kale loo sameeyo hadday noqoto Allah musta'an landing page-ka iyo funnel-ka loo sameeyo hadday noqoto email marketing-ka loo sameeyo hadday noqoto Google review-ka loo sameeyo businessadii oo dhan maanta waxay u baahan yihiin Allah musta'an xayisiis loo sameeyo marka I think the best thing aan oran karayo qofku ku samayn karayo dhowrkiisa kuna doore online-ka ugu horeeya waa inuu barto marketing marka xirfadahaas baa sii kala baxaya iyaguna specifically ayaa sii kala baxaya oo Allah musta'an sii kala baxay haddii taas noqotana waa how to sidee loo sameeya marka YouTube-kayga muuqaalo badan baa jirta oo kaga hadlay sidee marketing loo sameeya sidee dropshipping loo sameeya okay marketing hadda rabo inaan marketing sameeyo inaan barto xagee ka baranaya marka there's so many content Allah musta'an YouTube-ka ku jira
oo koorsooyin YouTube diyaarsan baa baa ka jirta. baran karaaba. YouTube ka baran kartaa Shahaadada soo ma baahna. anagoo koorsooyin aan bixinaa jirta uma baahnisa shahaado yaa shahaado ku weydiinaya haddaad xirfadda garanaysid waxaa u baahan tahay allah mustacaan inaad tirahdid xirfaddan baad ayaad baranaysaa marka xirfaddii baratid dee kambaniyada aan rabo inaan u shaqeeyo ma weydiin shahaado laisma weydiiyo portfolio noo soo darbay kornayaan haddaanad adigu portfolio hayn oo qofkii una portfolio haysan imika aan ku sheega anigoo kale haddaan hadda from scratch kasoo bilaabayo oo aan rabo inaan online business dhiso oo aan hadda Mareykan baan joogaa Minnesota kalen joogaa waxaan rabaa inaan online business dhiso ama aan business sameeyo businesska aan rabaa inaan sameeyo waxa ugu horeeyaan sameynaya maxay tahay okay waan ka fikiraya dadka waa maxay caqabad haysata markaad ka fikirtid eegtid okay businessan waxay u baahan yihiin marketing businesskan wuxuu u baahan yahay web design businesskan wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo allah mustacaan serviceka loo qabto and then servicekii baan eegaya waxay u baahnaayeen and then xirfadii baan baranaya and then markaan barto then businessyada waan ka iibinaya agency baan allah mustacaan samaysanaya agencyku waa inaad samaysatid allah mustacaan cid aad isku xidhid qofkii u baahnaayo qofkii xirfadda u baahnaa imika web design oo kale ayaaba tiraahdo ayaan provide garaynaya ayaan nidhi and then businessyaan soo hela allah mustacaan $1,000 Mareykanka normal base ka tahay allah mustacaan waxa ugu yaraad tigidhka ugu yaraad ka qaadi jiraysa waa $1,000 and then $1,000 ma ka soo qaaday dhalinyaro wadankii joogto xirfadii garanaya jirto wixii garanaya iyagaan u diraya iyaga saan ku helaya LinkedIn baan ka helaya waxaan ka helaya Facebook haddaad ku qotid Somali web designer Fiverr baan tegi karaya waan ka dhex helaya and then shaqadii iyagaan u diraya shaqadii iyagu markay deliver gareeyaan anigana lacagtii baan helaya imse client baan heli karaya 5 ilaa 10 client baan heli karaya bil kasta anana meel kale tegin Soomaali badan baa jirto business kale kuwaas baan u samayn karaya marka xirfadaas ayuu qofku baran karaya haddii uu rabo inuu income ka sameeyo online kuwa siyaabo kala duwan oo looga sameeyo jirta haddii content creation noqoto laakiin the fastest way uu qofku income uga samayn karayo online waa inuu agency samaysto una allah musta'an service provider no oo wax shahaado la isku xiriyo certificate la isku xiriyo ma there is no shahaado ma jirto okay ma google garaysiyo iyadana aqoon fiican ma leedahay skillska kaleete in ahayn digitalka skills kale saan aad u fara badan baa jira hadda iskuulada magaalada qaar kamid ah free ku bixiyaan oo waxaan leeyahay korontada iyo harqaanka iyo skill kaleete iyaguna aan online ahayn oo qofka online iyo waxaas u haysta inay adag yihiin uu baran karaya kuwa iyaga maxaa kala socotaa wala xirfadaas aad bay u fiican yihiin waa xirfado uu qofku wax fiican ku samayn karayo anu laakiin taan arkayo instead uu qofku jirkiisa ka shaqeyn lahaa inuu maskaxdiisa oo kuwaas jirkiisa ka shaqeyn doona qofku jirkiisa ka shaqeynaha mid kale waa time demand oo wax adiga waqtigaaga ku xiran marka way jirtaa allah musta'an siyaabooyin kala duwan oo qofku income ku samayn karayo Mareykan qofka ugu yar dhalinyaradan arko 5,000 10,000 bay sameeyaan allah musta'an dadka ugu yar oo online ku sameeyo ama caadiga offline ka kuwan arko okay waliba sidoo ku sameeyaan marka shaqooyin caadi tagan shaqo qofkii tagaya Uber buu sii galaya wax kale sii sameynaya and then waxaas buu isku geynaya 5,000 ka sameynaya 5,000 ha 6,000 bay sameynaya 6,000 laakiin qofka 2,300 dhaafila dad iyagu waxaa jira no haddana waxaas la mararka qaar ma qanaacada ay ku xiran tahay qofkay ku xiran tahay qofkana way ku xiran tahay adigoo laga yaabo inaad 5,000 ama 10,000 ma suugayso waxaa arkaysa xariif 3,000 isaga qanacsan markaa fiilisna isku nolol baa idinku taxalluqda oo inta biilka ka sugaysaa kaa sugaysaa marka adigii islahani bishaan 10,000 ama 20-30 samee haddaa aragto xariif 2,500 ka fikiraya inuu sameeyo waxaa leedahay nolosha ilaahay baa dabaqada u sameeyey moogta dadka qaarna warehouse ku joogaan ilaahay waa ugu talagalay aysan soo dhaafin dadka yani dadkoo dhan ma noqon karaan dad motivation haysto oo dhiirigelin haysto oo mindsetkoodu hay wada yahay ummadoo dhan ma noqon kartaa mararka qaar is oranaysaa moogta dadkan shaqeynaya daday u shaqeeyaan bay u baahan yihiin marka haddiiba hadda in specific weydiiyo adiga hal mar aan kusoo koobno 3 xirfadood oo maanta kuwa ugu lacag samayska badan dunida ah oo skills ah oo baran karayo aan kusoo koobno code wuxuu qofku baran karayaa social media marketing agency wuxuu baran karayaa dropshipping wuxuu baran karayaa content creation oo dhammaan saan loo hadduu 3 qofku barto he will make money any place content creation waa wax hadda anu aan sameynayo in a way marmarka qaar samaynta wax qofka dhalinyarada inuu asagu dhiirigelin saa'id hela maahe dadkeenu waxaa moodaa inay easy raadinayaan easy ma xataa kasii daran dadkeenu waxaa maqli jiray gabar hodanaalayaal dhaha waxay oran jirtay dadkeenu waa hamidilayaal oo hadda ani content creation haddaaba ahay aduu aad saa ii garanaysid wixii baa faham fiican u leeda moogta dhalinyaro fara badan baa waxay kusoo qoraysaa niyahow Mareykan kaamirad loogama qadeeye
tracker tracker qaar baa inta telefoon iga qaadan raba inay warehouse ii apply gareeyaan oo i geeyaan ba intay isii qaadaan igu xareeyaan maalin walba waxaa lagu leeyahay nin xataa marka hooyo iyo familka la hadasho waxaa lagu leeyahay hooyo kaamiradan weli awoodata maxay tahay oo maxaa weli social media iyo waxaan ka dhex qabanaysaa bal content creationku sideeba u yahay xirfad lacag looga sameeyo qofka aan wax fahna ka haysan haddii isku dayda inaa wax ula sheegtid su-aal baan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo inkastoo personal ay noqonayso haddana way weydiin kartaa bishii imsaa samaysaa waxaa dhihi jirta Soomaali dhihi jirta nin mushaarkiisa lama weydiiyo waa personally laakiin pride Allah 10 kun ma gaarayso Yeah. 10 kun ma gaarayso 5 kun way ka badan tahay okay marka fishingkaagu wuxuu yahay laakiin inaad wax weyn tan sababtan adoo wax ka badan aad u samayn karaysid tan u waxaynaysid markii dhawaadan sheekaysanay waxaad igu tiri inaad rabtid inaad samaysid huge team huge fishing budget aad arkaysid waay maxaa kugu dhaliyay riyada intaan haysta iguma filna haye waxa riyada kugu dhalinaya dhowr wax baa ku riixaya mindsetku mar walba meesha aad ku jirtid mindsetkaagu inuu kugu dhaliya mindset waa everything bay dhahan soo ma waa wax kasta so waxa aad haysatid inaad ku qancin mindsetkaagu inuu energy ku jiro oo aad wax cusub raadinaysid bay keenaysaa so hami baa jira aan ka leeyahay social media iyo inaan asagoo based on lacag inaan badan sameeyaa wax kastoo aan rabo inaan sameeyo dhaqaaluhu garab socdaa laakiin haddeertaan waxaa jira waxyaabo kale mission base yani goal baa jira aan ku socdo oo aan leeyahay halkaas rabaa inaan tago taas ay dhiirigelinaysa goal baa ii muuqda baa dhihi karaa okay goal baa jira arkaysid goal meel baa jirta ii muuqata meel isla haddaad tagtid ma soo deganaysid waa yahaas marka taas baa keenaysa inuu qofku qanco oo uu yidhaahdo ama wax la-aanku ku qanco ama wax kale ku qanco adduunyadan markasta waa shaqaynaysaa laakiin waxaad ka shaqaynaysid adigaa su-aasha ku horreeyey su-aalan la isweydiin i weydiiye war sama bad imsaa samaysaa bish xabadaad lagu soo kala jeedo hakuu dhameeyo ayo ku sacwaaye ma ilaawiye laakiin si waa qoranaya ay kaadi xabada karogo wax karogo sababta average ku tusay waxay ahayd ma ana edit gareeya darab taydan waa ka jaraya ka soo warsame adiga personally waxaa jirta qof kasta oo bini aadam buugaag qof kasta waxbaa dhiirigeliyey buugaag badan oo akhrisay baan arkay maxaa ku dhiirigeliyey marka laga yimaado ninkaa talada kugu siiyey inaad wax baratid maxay yihiin waxyaabaha ku dhiirigeliyey inaad halkaa u bareertid oo aad waqti kolli badan baa kaaga baxaya waqti badan waa niyadjo badan baa ka sokeeya challenge badan iyo niyadjo badan kuma dhici karayaan dad badan kuma dhici karayaan waxaan dee wax kastoo aan la bilaabin inkastoo saa u adag yihiin haddana qofku jawi uu ku jiraa jirta qofka taraag driverka way u fududahay inuu company taraag intuu sameeyo taraagyo laba gato isku xiro laakiin qof gaari waday ama qof company ka shaqeynaya intuu company ka soo tago oo guriga fariisto oo yiraahdo digital baan wax ka baranaya iyo online baan raadsanaya qofkii soo mar baa qiyaas waa hal mar buu qofku isbedelaya waa brainwash ku sameynaya waa maxay waxa brainwashkaas adiga kuu sahlay inaad jirto wallahi waa su'aal aad u muhiim ah mahado qofku waa news baara inuu qofku naftiisa barto waa shaqada ugu weyn ninkii Benjamin Franklin loo jiray baa wuxuu yiri saddex wax baa ugu adag waa diamondka iyo steelka birta iyo Allah musta'an to know thyself inaad naftaada adigu ogaatid marka inaad naftaada ogaatid waa shaqada ugu adag qofku markuu naftiisa og yahay he know Allah musta'an any project kastood qaadid ama wax kastood samaysid in project kastood qaadid ama wax kastood samaysid you enjoying imika podcast kan baad duubaysaa waad enjoy garanaysaa kameradan baad soo qaadaysaa waad enjoy garanaysaa laakiin markaad waxaa kala samaynaysid you don't enjoy it kulli baad shaqaynaysaa marka waxaad ka shaqaynaysid dooro midda kale waxaa jirta waxa la yidhaha leverage imika 100,000 oo qof ayuu gaari doonaa muuqaalkan 100,000 oo qof uu daawan doona it is leverage marka inaad fahantid Allah musta'an leverage-ka maxaa keenaya sidee buu u shaqaynaya inaad naftaada ogaatid maxaa adigu rabtaa nolosha maxaa ka rabtaa marka ilaa waxyaabaha keenaya Allah musta'an inaan idhaahdo I want to take this is where I feel fulfillment aan ka dareemayo okay AI xagga u socdaa wallahi AI change everything
AI wax kasta way bedeshay maanta huge project baad qaadi kartaa u dhibi karaysaa projectyo waaweyn hadda aad u waaweyn baa jirta oon hadda ka shaqeynno so it help us everything nolosha ka mid a haddaadan laakiin ina AI isticmaasho haddana laftigeeda waxaa ka sokeeya waxaan u malaynayaa qof kasta uma fududo inuu AI isticmaalo AI laftigeeda in la isticmaalo wax ka sokeeyaa jira oo qofku u baahan yahay inuu barto arrinta hadda af Soomaali ku weydiiyo AI uu kuu sheegaya laakiin haddana sidii ay tahay ha. maadaama soo luqadii lagu diyaariyay Ha, ahayn ha. sidii aan rabay igama qabtay horta qofka Soomaaliga ah dhalinyarada markaan sheekaysano maxaad wax ku quudataa baan ku idhaa moogtay quudashada waa waxa daawanaysid quudashadii la culiyin baad dhaqanaa laakiin maskaxdu waxay quudanayso waxay quudanayso waa contentkan iyo muuqaaladan ay daawanayso buugtan akhriyayso waxaan dhegeysanaysa weeyaan wax sababay markaan weydiiya waxaan ku idhahdaa dhalinyarada maxaad wax ku quudataa deeta waxay igu idhahdaan af Soomaali markaa waxaan ku idhahdaa haddaad Soomaali wax ku baranaysid waa dambaysaa saaxib ana wax kuu create gareeya aniguna waxaan kuu create gareyn karaya waa yaryihiin marka waxaa u baahan tahay aqoon badan oo badaa kaa maqan any mawduuc kasta maanta aad arkaysid waxaa jirta allah mustacaan ood wax ka baran karaysid boqolaal waxood wax ka baran karaysid baa jirta marka qofku inuu luqadda ingiriiska barto waa waxa ugu horeeya AI-da inuu isticmaalo waa very easy allah mustacaan waa aad bay u fududahay waxaa jirta kursooyin aan ka bixino AI basic sidee bay dadka waaweyn ama dadka caadiga raba inay xirfad AI-da ogaadaan kursooyin aan ka diyaarino allah mustacaan qofku qaadan karayo of Soomaaliya sidee AI-da loo isticmaalaa sidee social media marketing agents loo sameeyaa sidee contentka loo sameeyaa waxyaabahaas allah mustacaan education waxaan leenahay education platformka ay ka ayadu yaa caawinaysaa marka any person so hadda maanta markaan soo socday waxaan ku sameeyaa journal baan ku sameeyaa inta project ay socda way ogyihiin hadda projectkan ama baalkan allah mustacaan aan qabanaynay brainstorming baan ku sameynaa mawduucaas baan rabnaa inaan ka hadalno saysaa baan uga hadalno oo inoo fudaydisa shaqo kalaad rabtaa inaad qabatid design baan rabtaa inaad qabatid nacam noloshayda oo dhan hadda there is no way always I say myself use AI wixii ay qaadan jirtay inay saacado badan kaa qaadato you will get like that waxaad haysataa aqoontii ibni aadanku create gareeyay oo dhan ayay xifdisan tahay so there is no way that you can compete you have to use it okay qof baan rabaa inaan hire gareeyo qof baan rabaa inaan taran gareeyo projectkan baan ka shaqeynaya buugkan baan ka shaqeynaya waxaan kalaan qabanaya eventkan baan qabanaya podcastkan baan sameynaya videogan baan duubaya waxaan rabaa noloshayda inaan organize gareeyo waxaan rabaa inaan vacation tago waxaan rabaa inaan meelo kala booqdo inaan waxaan sameeyo and that's what's making difference so every single time I use AI I throw my whole heart to learn to study sidee buu u shaqeeyaa large language modelkan siduu u shaqeynaya baalkan uu ku fikirayo marka waa inaad ogaataa haddana taa ogeyn you get left behind dib u dhac baa kugu imanaya and then waxaad kaanaya allah mustacaan inaad okay caqliga macmalka ka gudbaynaa adiga warsame ahaan iyo kambanigaaguba maxay yihiin waxyaabaha businessyada ka caawis waxyaabaan ka caawino waxaan jirta software as a service aan sameynay oo hawaris aan iyo sanawaadan kusoo bixinay waxaa la yidhaha miftaax.io ayaa jirta miftaax.systems wuxuu ku sameynaya website wuxuu ku sameynaya email marketing wuxuu ku sameynaya SMS marketing wuxuu ku sameynaya waxyaaba aad u badan buu ku sameynaya marka waxaan specifically kala shaqeynaa businessyada sidee bay client badan ku heli karayaan businessyada la shaqeyna waxaa kamid ah accountantka waxaa kamid ah lawyerska waxaa kamid ah allah mustacaan information productka ku iibiyo iskuulada inaan allah mustacaan ka caawino sidoo kale waxaan la sameynaa automation inay shaqadooda automate karayaan imika shaqaa jirta soo noqota dadka clientyada badan inta badan hela inayn AI-da allah mustacaan chatbot u sameyno oo AI-da ay kala shaqeyso shaqadoodan iyo informationkooga marka systemskan kala shaqeynaa iyo marketingka iyo automationka sidee bay allah mustacaan systems businessku system u sameysan karaya oo ku dhex socdo sidoo kale waxaan kala shaqeynaa sidee bay marketing u sameyn karayaan oo client badan ay u heli karayaan sidoo kale allah mustacaan waxaan kala shaqeynaa sidee bay u automate gareyn karayaan waxaa jirta company kale online education platform la yidhahdo faaca cusub waxaan ku barnaa dhalinyarada sidee bay xirfadaha ay valueska u baranayaan sidoo kale waxaa jirta allah mustacaan waxyaabaha kale in allah mustacaan ka shaqeyno inaan kulamo waaweyn u qabano businessyada iyo dadka raba inay xirfadaha bartaan oon ku qabano meelo badan marka waxyaabaan qabana taas baa kamid ah dad ma jira la kulantaan oo online-ka iyo waxa dhanba ka aaminsan waxaan jirin waqti way badan yihiin way badan yihiin adigaa baad saragtaan bade every single day baad saragtaan maxaa kamid dadka ku gadeeyay maxaa waxaan kala ku sameynaya marka qofku haddaad aamintid waxaan inuu shaqeynayo iyo haddaad aamintid inuu waxaan shaqeynayn either way you are right labadaba ku saxantahay labadaba waad ku saxantahay maxaa akhrisaa waxaan akhriyaa wixii maskaxdeeda dhisaya waxaan akhriyaa sideen xirfado u baran karaya waxaan akhriyaa every single day every single bil kasta waxaan akhriyaa 5 book
waxaan dhegeystaa thousands and thousands of hours of podcasts or YouTube videos and every single day I try to grow and learn and Allah musta'an inaan wax badan barto marka waxyaabahan akhriyo waxaa kamid ah wixii naftayda horumarinaya wixii businesskayga horumarinaya wixii noloshayda horumarinaya adaa soo koobaya luqadda ingiliishka inuu qofku barto maxaa u sahlay luqadda ingiliishka inuu qofku barto kow inuu go-aan yeesho casiima waliba casmi min arusul allahu mustacaan casiimadu ama go-aan inaad leedahay waa waxa keliya tee noloshaada meel ku gaarsiinaya okay koow labo saddex afar shan lix itax talabaad waa in ambition leedahay inaan ku qanacsanayn inaad af Soomaali wax ku dhageysatid af Soomaali waxaad ku dhageysanaysaa wuu kooban yahay oo fiican tahay allahu mustacaan production adaaban ka sheekaysan maalinkii dhaweedan aan wada cunteynayna waxaad tiri af Soomaali baan waagi hore wax ku dhageysan jiray laakiin hadda wax ka duwan ma ku dhageysta why aad dooratay inaad ugu dhageysatid ugu yaraaday adaa had sheegayo dhahay de marba adiga ku dhageysan jiray marba adiga maxamed cumar idin dhageysan jiray sax idinkama yani wixii aad sheegayseen way ugu yaraadeen sax ama inaan produce gareynin ba macquula waxaan dareemay waxa wax ka badan inay jiraan inta sheegaysaan in ka sii badan hadeertan dad waxa jira na dhageysanaya inaga laakiin mar walba waxa jirta qofka dhageysanaysid dad ka badan Sheekh Mustafa waxaan daawaday dhahay mar walba waxa jira qof cilmi ku dhaamo wax ku dheer luqadeena aad bay u kooban tahay cilmiga luqadeena ku qoran ama cilmiga luqadeena lagu soo gudbin karo wax uu dunida ka yahay ma jirto so waxaan ogaaday luqadda ingiriishku inay tahay furaha albaab walba so ina hadda wax kasto aan dhageysanay wax kasto aan daawanay iyada noqoto qofku waxa jirta wax la yiraahdo network effect waxa la yiraahdaa imika lacagta ugu badan ee adduunka la isticmaalo waa nooci dollar luqadda ugu badan ee adduunka lagu hadlo maxay English social media ugu badan la isticmaalo okay Facebook iskale okay waa maxay meesha ugu badan ee wax laga iibsado online-ka waa suuqyadooda waxa la dhahaa online-ka meesha ugu weyn ee wax laga iibsado xagee book Amazon marka maxay sameeyeen businesses waxay sameeyeen network effect wax la yiraahdo network effect wax la yiraahdaa natural monopoly bay sameeyaan dad baa koornay luqadda English aad ku hadlaysaa waxaad ka dhigaysaa balaayo taas ma balaayo luqadda English waa luqad waa weel imka caagad waxaan isku soo qaadnay maxayna kooba waxaa jirta xayndaab aan ka gudbi la'anahay qofka Soomaaliga inuu dunida caan ka noqdo way adag tahay I decided for that qof iyo laba ana decide garay Mustafa mahado inaan duubo content muuqaalo luqadda Ingiriiska ku baxaya in adduunka la falgalo inaan insha Allah dileeyahay sanadkan intuuna bixin aan dad badan luqadda ku gaaro and the reason why maxaa ku koobaya ma haynan qof Soomaali nacabahay ma haynan Allah musta'an waxay laakiin I want to take the bigger opportunity I want to make inaan impact-kayga weyneeyo oo Allah musta'an dad badan gaaro marka qofku uu saameynaya Allah musta'an ama wadankii joog ama meel kale joog maalinkaad wax bilaabaysid dad muuqaal bilaabaysid hankaaga waxa noqdo meesha ugu sareey marka waxa qofka yareynay maxaana koobaya marka anaga fiir dadkeena dad badan oo talent leh baa jira laakiin inaga noo dhex kooban waxa aad garanaya culimo badan oo Soomaali ah hadii luqadda aysan ku hadlin aysan Soomaali ahaan lahayn dunida dadka ugu macnaha badan bay ku beeri lahaayeen Sheekh Mustafa kamid ah sidoo u dhisan yahay bini aadam Ilaahayna karaameeyay haddana sheekha waxyaabaha aan ka yaabay waxa weeyaan markuu rabo inuu af Soomaali khudba ku jeediyo Ilaahay ha barakeeyo khudbadu af Soomaali ku jeedinayo wuxuu isku dayayaa erayada uu xulanayo inay noqdaan eray reer waqooyiguna fahmi karo reer koonfurkana fahmi karaan maxaa la yiraahdaa kasto Soomaali ah inay eraygiis ku wareerin buu rabaa markaas wuxuu leeyahay eraygaas oo saas Carabi ku ah laakiin Soomaaliga saas ku ah Soomaalida hore ay saa oran jirtay buu ku leeyahay ma garad wuxuu rabaa inuu social media casriga dunida ka sameeyo muxaadara bari wuxuu tiim u direeyaa saan isira anigu asoo waqti ma gelinaysay laakiin wuxuu ku khasban yahay had maalin aad aragtay wuxuu ka sheekeynayay Soomaalida dadka ay daawadaan wuxuu xusay Maxamed Khadar iyo team adigu uusan magacyadooda sheegin laakiin qofka ugu daawashada badan YouTube-ka wuxuu yiraahdaa qof ciyaaraha ka warrama weeye ku heesaha baa jira Cristiano Ronaldo soo ka sheekeynay waa aragtay yacni wuxuu ka dhisan yahay culumta kale sida wax loo baaro ma garad marka luqaddu aad bay noo koobaysaa sheekhaas oo kale haduu luqaddu ay English noqon lahayd xagee buu joogi lahaa ama Carabi ay noqon lahayd oo kale meel fog buu joogi anigu waxaan soolan karayaa waxyaabaha dadka ugu waaweyn xidha oo qofkii oonan aaminsanayn naftiisa the more you believe yourself the more you wax badan aad qaban karaysid
waxaan eegaa maalin dhawid London baan ka qayb galay kulan weyn oo $1,000 baan ku bixiyay training Allah musta'an marketing laga hadlay dadkii ka soo qayb galay waxay 300 qof oo min $1,000 bixiyay bay mid meesha dadkii ka soo qayb galay waxay badnaayeen Allah musta'an dad luqad Ingiriisi ku hadlaya ama cadaan bay badnaayeen London baan joogay I think June waxay ahayd 12 saddex show seminar soconayo oo marketingka iyo funnel buildingka iyo email marketingka iyo Allah musta'an social media iyo ariska iyo soo shaqeeyaan laga hadlay and then dadka meesha imiday markaan hadlayay in Allah musta'an meesha ka dhex sheekaysanay oo sheegay waxaan ku yidhi dadkii I build a YouTube kaas baan sameeyay content ka baan create gareeyay xirfadahaas baan bartay people listen me aniga dadkii dhageysanay aniga iimanay weydiinay how you create muuqaal sama fiican sida u sameynaysaa sida waxaan u sameynaysaa and then waxaan siri this is opportunity is big so why isku koobaysa Allah musta'an ma inaan Soomaali nacabahay ama inaan nacabahay ma aha dhalinyaradeeda waan jecelahay waan dhiirigeliyaa wax badan ma siiya ma garatay laakiin waxa ugu badan ee Allah musta'an aan oran karayo niyo adduunkan globalization baa dhacay cawle ma dhacay adduunkii oo dhan telefoonkaas buu isugu yimid marka waxay ku xiran tahay qofka iyo rabitaankiisa iraadadu leeyahay ay ku xiran tahay marka dhalinyaro ha iskoobina luqad Soomaaliya aqoon kuma helisid luqad Carabiya xataa waxaad ku helisid way kooban tahay carabtu wax way create gareeyaan way fiican tahay lamsa waa luqad diiniya laakiin luqadda Ingiriiska u qaada serious way maalinkaad luqadda Ingiriiska wax ku baaranaysid library aqoontii dhaneeda ibn aadan ka haysata aqoon diineed baa ku helaysaa aqoon kale aad ku helaysaa luqadda Ingiriiska inay kula noqon Allah musta'an qof kasta ku hadlayna luqadda Ingiriiska ma luqad ba aniga marmarka qaar waxaan dhihi jiray luqadda waxay ku dhaheen luqadda Ingiriisku waa luqad ma hadda laakiin sida ay ku socoto waa aqoon caadi ku socota aqoon ay tahay in serious loo qaato way natural monopoly bas sameeyay imika maanta Facebook cid la tartamay ma jirto boqol Facebook hadii la sameeyo aqoontii luqadahan la tartami kara xataa Jarmalka kamid ah wadamada waaweyn ee dhaqaalaha badan haysta Faransiiska kamid lama tartami karayaan qasab waa in dhalinyaradoodii luqadan bartaan if they want to haday global icon ay rabaan inay noqdaan waa in English ku hadli karaan waa in English ku hadli karayaan marka natural monopoly bas sameeyay maanta boqol Facebook kala hadii la sameeyo luqadda Soomaaliga wax ku baaradeystira imso qof tahay 30 milyan baa tahay 30 milyan xageed wax gaarsiinay there is no way at meel gaarsiin 30 milyan ba comment garaysa 30 milyan ha waxaan arinka uga faa'iideysanayaa insha Allah hadii la hayraado bisha 9aad 6deeda insha Allah waxaan qabanaynaa huge event oo Baraka Business Expo la yiraahdo oo isugu imanayna Allah musta'an nationwide la isugu imanay marka 300 oo business oo muslimiinta Mareykanka ku nool ay leeyihiin ayaan insha Allah hadii la hayraado qabanaynaa so haddaad Minnesota ku nooshahay oo ganacsi leedahay oo rabtid inaad baratid Allah musta'an marketingka AI-da sidoo kale aad xiriidha macnala oo Allah musta'an businessyada la samaysatid insha Allah hadii la yiraahdo waxaan invite gareynaynaa dad keynote speakers waaweyn oo muslimiinta Allah musta'an Mareykanka ugu waaweyn markaan nagala soo qayb gal waxaan ku baraynaa sidii aad hankaaga u kala jiidi lahayd waxaan soo keenaa dad badan oo cudama muslimiinta ugu saameynta badan leh wadanka Mareykanka marka insha Allah hadii la yiraahdo arkaas bidir 300 business ka igu dara adiga qayb ka noqon sabab qayb ka noqonaya aad baan xiisanaya position kaaga ku aad baan xiisanaya no mar walbaba firi mar waxaas dhaha mar marka qaar bini aadanku inuusan wax cilmi cusub raadin waxay ku timaada inta yar oo haysto inuu ku qanco marka shan buug qof uu leeyahay nin iguma filan haysto inaan ka badiyo anigana buug aan 3 bilood dhameen la ahay waxay noqonaysaa markaas inaan dhaho yani marka qof wax dadka aan la joogaa waxay yihiin qof waxba akhrin baa la joogaa marka inaan buug akhriyo wuxuu leeyahay wallahi buug ba akhrisayo marka mid labaad ma raadinayo kiyo mangaari saaxib saameyn baa dhacda anigu London maalinkan tagay horteed saan fikrayay iyo London maalinkan ka soo noqday I will never same again in my life eventkaas waxay isugu yimid 300 oo qof dadka yimiday boqolkiiba 30 millionaires bay ahayd millionaires caadi ahaayeen oo companiyo waaweyn oo real estate ku jira oo marketingka ku jira qaar baa $200 milyan sameynay a year kaliya every single year speakerski meesha ka hadlay and then ana ba shoog igu dhacay waxaan idhiba there is no way Allah musta'an wuxuu qabanaysa marka waxyaabihi ugu badnaa isweydiyo wax kamid ahayd maxaa keenay taas because audience kooga ka duwan luqadda Ingiriiska inay tagtaa al had channel cusub aan bilaabo luqadda Ingiriiska Allah musta'an sayman kaga hadlayo and one ogahay Allah musta'an hadii inuu ka sii gaaray so the reason why Allah musta'an aan u baahanahay dhalinyaro inaan hankeena kala jiidno on nidhaahno we will become in the global icon that's Allah musta'an weyn waxaan u baahanahay maanta waxay ilhaan ku noqotay waxaan ka leedahay boqolaal qof oo kala jirto Allah musta'an dhex joog marka the more aad naftaada kala jiidid
ama the more maskaxdaada aad kala jiidid oo tirahdid I don't Allah musta'an settle Allah musta'an meel oo soo joog ma rabo adduunkaas baan rabaa inaan la tartamo waxaas baan rabaa inaan isku dayo qasab ma hayna inay ku shaqeyso nothing works laakiin hankeygii iyo isku daygeygii iyo waxeygii inaad leedahay waa waxa ku siinaya Allah musta'an waxa ku siinaya anagu dunida hadda qaabka arrinaan kula tartana waa luqad iyo energy iyo cilmi cusub inaan baranay iyo in a way wada yar wada naga sahlan aysan ka faa'iideysan way businessyada aad dhiirigelinaysaan oo kale waxaan jeclaan lahaa inay Soomaalidu aad uga faa'iideystaan sababtoo ah luqaddu Soomaalida way xirtay makhaayadda Minnesota ku taala waxaa moodaa inay ku taalo Soomaaliya meel kamid ah sababta waxay u furan tahay waa Soomaali cuntada makhaayadda lagu kariyo dad gabiyada 100 kun lagu qiyaaso bay makhaayadahaas u furan yihiin steedkana waxa kuna lix waxay ku dhacday 2023 baan imid Mareykan markii ugu horeysay imid I was so surprised Mareykan baan imiday 8 cisho kaliya tan joogay waxaan ka soo daadegay Minnesota waxaan tagay Caramel Mall 24ka Allah musta'an businessadii baan eegay dadkeena say u nool yihiin and I say this is one of the greatest country of all humankind all adduunka oo dhan baa raba inay xaggan imaadaan wax ka dhex sameeyaan business dhisaan kuwa Yurub jooga xataa markuu qofku yidhaahdo Mareykan ay ka yimiday and waana run opportunity way taala there is a lot of why waxaan sir businessadooda sano koobaya why they did not go into ay u fikir lahayn ay 200 milyan oo waxay haystaan middle class oo awoodi karaya why businessadooda ugu fikir lahayn inay waxaan qabtaan why Soomaali kaliya tan ugu koobana waan baxay waxaan tagay Silicon Valley California tagay San Francisco and I was surprised Google waa magaalada dhan oo fadhid nimanka qofka dhalinyarada Mareykanka markuu fikirayo I want to become the best in the world bully why the way we square watas and this environment created maha ben environment kan waa environment Europe waan ku noolaano Ingiriiska deganaanshaha ka haysta bulshada intaas baan ku soo noolaa there is no country in the world uu qofku oran karay intuu bari yimaado sida mahadoo kale I want to become that mid kale Europe waxaan wada joognay waxaan kulankan ka qayb galay Ingiriiska bishii 6aad aan ka qayb galay gabadh baan sheekaysanay wadanka Ireland bay ka timid waxay tiri businesska waxa ugu sadeysan ku yidhi waxay tiri Mareykan iyo Ingiriiska why wadanka Ireland waxay ku leedahay waxay ku oranayaan maxaad qabatay aaw certificate-kaaga Mareykanka waxay ku oranayaan dadku I want to become that go get it bay ku oranayaan waxa samayn karaysaa soco wadooli karaysaa ay ku oranayaan and what's creating this environment Allah musta'an qasab ma hayna leeyahay dhalinyarada la soo tariiba in daawanaysa ama xagaas laakiin environment-kaaga ku dhex practice gareyn karaysaa waxna wax aan sameeyno marka qofka dhalinyarada ee Mareykan ku nool ama Europe ku nool ama first world countries ku nool ee maanta telefoon haysta ee information haysta ee hankiisu meel hoose uu dhigayo adaa meeshaas dhigay Allah musta'an kan makhaayadaha fadhiya isaga qabiilka sheekeynaya ka hor wallahi waa wax loo xishoodo wallahi brother that's waa wax loo xishoon karayo waayo qofka potentialka inta labada makhaayad isku soo horjeeda midna dhalinyarada fadhida ay ka fakarayaan xildhibaan Soomaaliya mustaqbalka inay noqdaan oo ay difaacayaan wasiir ay in laga yaabo isku abtirsiimay yihiin oo jifadooda Facebook ka difaacayaan oo lacagta ay dirayaan qaarkood ku fakarayaan inay reerka qoryo ugu gadaan hor leh makhaayad ka soo horjeeda dhalinyarada fadhida ay ka fakarayaan oo kana gaara million this coming months bal ka war labada hami wallahi waa himadu waa waxa qofku ku duulaya himadu waa waxa keenaya inuu qofku yiraahdo okay ila 7 arimood baan ayaa book baa jira hataan qorayo aan qorayo almost dhameeyay bookgaas baan kaga hadlaya maxaa himada dila maxaana himada weynaya himada waxyaabaha dila waxa kamid ah distractionka inuu qofku distracted iska noqdo maanta dhan oo social media maanta dhan iska dhex fadhiyo TikTok iyo Facebook iyo meelaha iska dhex fadhiyo talabaad Allah musta'an keenaysa dadka kugu hagaagaysan waa dadka jaangoynay hadii go getter isa saaxiib la noqotid you will become a go getter arrinkaas kale isna dilay waa aqoonta information kaaga yar himadaadu dilay the reason why Allah musta'an tahay qofka inuu wax uu akhriyo uu korimo sameeyay marka qofka lama yaabani jirkiisa jismigiisa waxa kan jooga muhiimad walaha ba jirta tiraada muhiimadu maaha meeshaad ku nooshay waa wax adiga kugu dhex nool ya oo wax adiga kugu dhex jira ama hadda Mareykan ku noolaatay sidii wadankii oday tuulayr jooga ayad Allah musta'an u dhaqmi karaysaa bal luqadda kale adoo qofka Mareykanka ku nool like 15 years or 10 years English kana aan lawyerkiisa si fiican ugu hadli karin rabin inuu ku shaqeysto luqadda Ingiriiska qorshaha isugu jirin ba somehow qofka English fiican ku hadlaya oo ka aaminsan yahay qof istus ah
waa insecurity taas qofka insecurity qofka ingiriiska ku hadlaya maaha istus waa qof xirfad bartay oo allahumma sa'an isku filnaaday oo naftiisii bartay adiguna baran karaysaa adna baran karaysaa haddaad baratay sida gaariga loo kaxeeyo you can learn any skill luqadda ingiriiska waa inaad naftaada ka dhex baxdid oo humility ku dhacdo marka xirfad baranaysu qofku rabo inuu xirfad barto humility baa ku dhacaya qofkii hoos naftiisa wuxuu dareemaya inuu hooseyn waayo waa inaad hoosta ka soo bilowda markuu rabo inuu luqad barto wax buu qalqaldaya u cabsanaya and that's normal and nature okay waxbaa ka xishan luqadda isku dayay troyo ha hadal goode oo kugu dhigi kartaa way kugu dhigi kartaa waxbaa kugu adkaan kara ana hadda waxaan rabo inaan sameeyo hadda firi dhiirigelintaada anoo qaadanayaba sida caadiga ay tahay aan qorsheynayana ay tahay waxaan rabaa inaan keeno halkan gasti sax ingiriis waa inaan ku wareysto sax maayarka gobolka kale rabtaa inaan wareysto maayar gobolka kale inaan wareysto sax wadad accesskoodu Soomaalida ka access fiican yihiin hadda email u dirtid waxa laga yaabaa markaa inay heshid sida dadkeena Soomaalida balaayo isaga dhigaan dadkan Mareykanka balaayo iska dhigaan hadday ku arkaan in lagu daawanayo ayaga ku iimaanaya ku soo raadinaya qaarkoodna way soo raadiyeen okay waxaan rabaa luqadda intaan ka aqaan inaan ku wareysto daad geesinimadaad waa taas inta aan ka aqaano baan weydiinayaa erey uu dhahayn fahmaya ii jooji wada wait a minute let me translate baan leeyahay give me a second baan leeyahay ereygu afkiisa aan dhahay repeat again baan dhahayaa ma garad ereygan eegaya luqadda Soomaaliga ku eegaya inaan fahmaan ereygan si explain gareynaya waxyaabaha aan isdhihi karay wayna koobtay weliba dadkeena content creationska hal qof oo Soomaaliya content creators ah oo global galay waa number yar numberkaasna waa number af Soomaaliya ku adag yahay oo ku dhex joogay ha oo ku dhex dhashay waana number yar qof yar 2 3 4 5 laakiin kuwa hoosta ka soo baxo oo jabiya darbiga la rabaa ilaga loo qolay weliba xiisa yeelanaysa ladeena noqonayna waxa xiisa u yeelayaan waxa weeyaan accent aad baa loo xiiseeyaa hadda youtuberada aan daawado Mareykan kaliya ma aha waxa ku jira Hindi oo da waxay Afrikaan badan waxa jira Nigeria kale oo youtubers dunida laga yaqaan jira luqadda kama xishoodaan marka kama xishoodaan ereyga aysan garanaynin kuma adkaanayo ereyga ay u maleynayaan bidhayaan ay dhahayaan ma garad so waxa muhiim in inaad bilowdid qofka ku daawanaya actually qofka Soomaaliga uu ku caayay hadda aniga hal wareysiyo English aan qaaday oday shan dhahaan baan wareystay school baan marka waa taqaana Soomaalida qofadiga ku soo galeen waranu qaar waxay soo qadaan ninka ahaan la kuwa imaadeen qaar waxay soo qoriyaan warnu ninka u wareysatay luqadda ka fariis meesha luqadda fiican u baro waa insecurity qofkaas hayo yani commentiyada hadda fiirish hadda post yada raadis commentiyada akhrisin dadkaas anay wada caayaan postigaas hadii dad ajnabi ay arkaan this guy uu dadaalaya this is amazing guy amazing bilay luqadda isku dayaya hadii ila soo hadli karaan waxay ku leeyihiin hore u soco bal laakiin qofkii luqadaada kugula hadlayay isku day fiican baa sameynaysa qof yalaba ku soo qoray waana sida saxda ah waxaana niyad jabiya markaan ku leeyahay dadkeenu waa hamidilayaan wallahi adduunka kale alla maxaa geesi ku dhexlintay markii dadka fiiri marka adduunka waxa laga bilaabo dadkaaga muuqdo dadkaaga aday ku bushgareynayeen waa tan imika ku sheegay gabadhaas Ireland ka timiday waxay tiri wadankayga dadkayga wax kama iibsata cid wax ka iibsata Mareykan the reason why uu ku leedahay Mareykanku way ku aaminayaan go get it back on we will with you hore ku leeyahay hore socoha isku day waxaan samee environment-kii bay create gareeyaan waxaan jeclahay inta aadan Mareykan ka tagin inaan xalqado kala sameeyno xalqadan intaan ku soo koobina aad iyo aad ba thank you so much thank you